الرسول كان صلوات ربي وسلام عليه الصلاة ليه سلدات مركا وحن وجهدا qoyska dhismihiisu waa mabda kamida mabaadiida asaasiga ee diintii nabi maxamed leeyahay sallallahu alayhi wasallam alayhi macna sayid anu nimaadna marka maxaa haysta mushaakisha qoysaska haysta maxay khaasatan qoysaskan Yurub iyo Mareykanka iyo nolosha reer galbeedka dhex yimid mashaakisha haystay say u yaalaan مشاكل هيستا waxa kamid ah qoysas oo kuwa ugu halisan qoysasku waxay qarka u saaran yihiin ama dhacdayba taqriiban in badan ku dhacday in badanna ay qarka u saaran yihiin inay ku dhex milmaan mujtamacaadkii ay u yimaadeen maxay yeelay mujtamacu saamayn bulay تأثير بولي si aadan adiga dareemaynin marka ayuu wuxuu siinaya dhaqankiis taqaaliidis waxyaalaha uu rumaysan yahay akhlaaqdiis adigu laakiin waxa laga yaabaa inaad filayso weerar muuqda in lagu soo qaado gurigaaga weerar lagu soo qaadiyo xaska oo marada laga dhigo oo ilmahaagi weerar lagu soo qaado oo adoo arkahayo ay ku muuqato la kaxaysto yaani saamaynta bulshooyinku ay sameeyaan oo ruuxa ku sameeyaan saas ma aha waad kaga dhex noolaanaysaa saamayn badan ma dareemaysid qalbigaaga marka hore wax iska bedelayaan isbedelka qalbigaa soconaya marka dambana saamayntu waxay u soo gudbaysaa noloshii qaybaheedii kala gadisneed ee qoyska soo gudbaysa mushkilada ugu weyn ee haysataa bulshadu inay saamayn leedahay waxa ku garan kartaa nabigeena sallallahu alayhi wasallam nin baa u soo dacwooday saxaabadiisa kamid wuxuu ku yiri rasuul allah nin aan darisnahay ayaa idhiba si kasta intaan yeelay buu ninkaas dhibkiiga dayn waayay nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam waxa samaysaa alaabta guriga ku jirta inta soo saarto wadada ku soo daadi buu nabiga sallallahu alayhi wasallam alaabtii uu soo saaray guriga ka soo saaray wadadii uu ku daadiyay markaasuu is-ag taagay alaabtii oo wadada daadsan dadkii jidkay hayaan waa la soo marayaa marka ninkii soo maraba wuxuu leeyahay war maxaa kugu dhacay maxaa guriga ka soo saaray nin dariso xun baan leeyahay oo meeshan oo idhimayo gurigii aan la joogi waay habaar allah kugu rido inkaari kugu dhacdo war ninka laga nabadgeli waayo muxuu ah waa qoladaas waa dhacdo kuwa kala soo maray war maxaa kugu dhacay nin aan darisnahay baa idhimayo guriga iga soo saaray balaaye allah ku rido qolo walba martaba warka u sheegaba yaani waxay ku turtaa habaar bay ku turtaa ninkii markuu arkay waxa ku socda ayuu intuu yiri warniyo raalli ahow dib dambana ku dhibi maayo ballan baan ka qaadaya adigoo raalli ah alaabtii soo cesho guriga ku soo noqo isaga alaabtii la dalbalay oo guriga ku celi dib dambe ninkii dib dambe oo u qasfaday ma jiro baluu fiirsan rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam qaabku wuxuu daaweynay bulshada cadaadiskeeda iyo bulshada ta'siirkeeda iyo saamaynteedu wax u dul qaadan kara ma jiro uma adkaysan karo maxay ila adiga bini aadam hada tahay waxa la yiraahdaa al-insanu kaa'inun ijtimaa'i baa la yiraahdaa waa makhluuq isaga oo dhan inuu bulsho ahaado bulsho ku dhex jiro ay laazim ku tahay kaliya ma noolaan karo haddii wax walba inta guriga lagu dhigo hoolkan hadda aan dhex fadhino inta cuntadii lagu diyaariyo cabitaankii lagu diyaariyo wax walba oo rabta halka lagu dhigo lagu yiraahdo kaliya ku noolow dadkana laga kaxeeyo cadaabka ugu badan baad mudani dibka ugu badan baad mudani sababtu maxay tahay waxaad u baahan tahay waxaad la noolaato waxaad la sheekaysato waxaad wada joogtaan waxaad haasawdaan wax kula mid ah oo u heshiiso baad u baahan waa nolosheena qaybaha asaasiga ah kamid waxaad ku garan kartaan rabbi subhanahu wa ta'ala quraanka ayada fi suurati tawba ku jirta
saddex nin oo waxaa jirtay saxaabada ka mid ah oo dagaalkii nebigu markuu u baxay Tabuuk ka hadhay munaafiqiin badan baa ka hadhay laakiin saddexdaasi waxay ahayn saddex nin oo fiican laakiin waxoogaa adduunya reebay markuu nebigu dagaalkii ka soo noqday ayay nebiga u yimaadeen sallallahu alayhi wasallam markaasay u cudur daarteen yani waxay u sheegeen sababtii reebtay inay u hadheen gardarro inay u hadheen iyo gar la'aan wax sabab oo reebay iyagoon jirin inay iska hadheen nebigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yidhi kac iska taga ilaahay baa arrinkiina xukumi doonee waa tageen amar baa la soo rogoo nebigu wareegtu soo saaray uu leeyahay nimankaa lalama hadli karo wax la hadli kara ma jiro nimankii dadkii baa ka wada aamusay bulshadii waa dhex joogaan wasaajidkii waa imaanayaan meelihii la isugu imaanayo waa joogaan laakiin assalaamu calaykum hadday dhahaan wa calaykum assalaam wax dhahaya ma jiro salaan xataa laga qaadi maayo 40 beri markay u dhammaatay yaa haddana xaaladii lasii adkeeyo waxaa la yidhi naagihiinana ka fogaada markii hore dumarkii bay la joogeene xaasaskiinana waxaa la yidhi ka taga rabbi subxaanahu watacaala nimanka xaaladda qabsatay markuu cabirayay iyo dareenkoodu meeshuu gaadhay iyo sida ay cidhiidhiga u galeen wuxuu rabbi yidhi subxaanahu watacaala wacala alhalaathati aladiina khullifuu xataa idaa daaqat calayhim alardu bima raxubat وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه dhulkii baa ku cidhiidhiyamay oo naftoodii baa ku cidhiidhiyantay dhulkii waa waasac laakiin adiga dhulkani wuxuu waasac kuugu yahay bulshadaad ku dhex noosha sheekada lagugula sheekaysanayo naftaadu waxay waasac tahay faraxsan tahay markaad dadka dhex joogto oo lagula sheekaysanayo ood weheshanayso ood wada joogtaan oo haasaawaytaan laakiin bulshadaasi maanta hadday kaa aamusto dhulkani wuxuu kula noqonay dhulkaa taqaanayba ma aha bulshadu bulshadaa taqaanay ma aha bini aadam baynu nahay marka ma kala maarano oo bulsho kama maarno bini aadamku waa kaain ijtimaaciyo bulshuu ku dhex koray bulshana kama maarno ha ahaatee bulshada aad ku dhex nooshahay adiguna waxbaad ku biirisaa iyaduna waxbay kugu biirisaa saamayn baad ku leedahay iyaduna saamayn bay kugu leedahay waxbay kaa bedeshaa adiguna waxbaad ka bedeli kartaa ayib laakiin kolba haddii lagaa badan yahayna adaa lagu bedeli haddaad badan tahayna adaa wax bedelay haddii lagaa badan yahay hata soomaalidu tidhaahdo dad kaa badan iyo biyo kaa badanba way ku hafiyaan midna iskama caabi weerarka afkaarta iyo akhlaaqda kaaga imaanaya bulshada aad ku dhex nooshahay inta aad iska caabin karto si kasta haddaad u dalaasho waa muddo kooban waxay la mid tahay sidii maalan adigoo biyo socdo aad u socda togaga oo kaleeto biyahoodu markay rogmanayaan oo aad u socdaan adigoo ka hor yimid oo kaleeto oo ka hor dabaalanay oo biyihii ka hor tegey tayaarka biyaha qaabku u socdo inaad u raacdo mooyaane haddaad ka hor tagto ood tidhaahdo xoog ku mar muddo gaaban baad dabaalan kartaa wixii ka dambeeya waad raaci qasab si kasta haddaad dabaal u taqaano ood aqoon kasta u leedahay muddo gaaban baad biyo kaa hor yimid aad iska celin kartaa waa daali marka dambe waa inaad dhiibto oad ku qasbanta waxaan kaaga socda bulshada kaaga socda aad ku dhex nooshahay inta aad iscaabin karto ood iscelcelin karto waa muddo gaaban oo aada u gaaban waxaad ku garan kartaa bulshooyinkii muslimka ahaa ee soo degay waddamadan reer galbeedka ee innaga soomaalida qaxeenna ka horreeyey markaad u timaadeen ayaga iyo bulshaday u yimaadeen u malayn maayo farqi weyn inuu udhexeeyo farqi weyn oo la taaban karayo nolosha qoyskooda iyo carruurtooda iyo iyaga iyo wax weyn uma dhexeeyo innaga soomaalida ah muddadii aad timaadeen hadda dhowr iyo 10 sano taqriiban baa la joogaa waddamada sanadihii horeed imaanayseen qaabkaad wax u arkayseen iyo aragtidiinna iyo qaab nololeedka qoysaska iyo yacni fikirkiinu qaabku ahaa iyo xataa akhlaaqdu qaabkay ahayd iyo maanta siday tahay farqi weyn baa udhexeeya bal ruux walowba adigu miisaan gooniyaysa saar maanta iyo shalay isku mid maydaan ahayn wahaakadaa waktigu waa ku wadayaa adiguna waad sii dabcaysaa yacni waad sii soconaysaa naf yar baa marka dambe kugu soo hadhi
bal carruurtaada u kaadi kuwii ku dhashay u kaadi yacni dadka macnaha waxa weeye da'yartaa u kaadi odayaasha waaweyn ee iyagoo waaweynoo waxoogaa maskaxdoodu samaysantay diin ahaan u samaysmay akhlaaqdoodu samaysantay bulsho islaam kusoo dhex koray kuwa unbaa laga yaabaa hadday wax ka hadhi karaan inay wax ka hadhaan un hadday hadhi karaan oo baaqi noqonaya kuwan baa hadha saas way macana ama generationka ku xiga isaga waxa weye rajo badan lagama qabo sababtu maxay tahay waxaa laga yaabaa duulaan toosa inta lasoo weeraray inaan lagu odhanin gaalow oo kaniisada gal oo diinta islaamka nac oo akhlaaqdii aad xagga kala timid waa waxun inaan lagu dhihin baa laga yaaba laakiin maxaa heerkaa ku gaadhsiiyey waxaa heerkaa ku gaadhsiiyey maalin walba waad dhaqmaysaa rinjiga si kasta rinjigaagu ha u adkaado geed aday kasta haddaad tahay dhaqitaanka maalin walba kugu socdon baa kaa tambadina marka dambe saas marka taa way midda laynooga digayo ta'asurka iyo saamaynta bulshadu ay keenayso wax layska celin karo layska caabin karo maaha waana midda keentay shareecadii nebi maxamed ilaahay ku soo dejiyey subxaana wa tacaala iyo diinta islaamku inay ina tidhaahdo war bulsho aan idinla fikrad ahayn oon idinla diin ahayn iskama caabin kartaane ka dhex taga haddii xal uun diintu heli karto in laysku dhex noolaan kara ah xalka waa la keeni lahaa laynama yidhaahdeen taga guura laynama dheheen hijrooda laynama dheheen carara laynama dheheen waxaa layna dhihi lahaa meye idinkuba waxbaad gudbin kartaane weerara oo macnaha waxa weye afkaartiina gudbiya laakiin rabbi subxaana wa tacaala waxaan inoo muuqanin baa u muuqda rasuulkiisa waxaa u muuqda waxaan maanta inoo muuqanin shareecadu waxay wax ka fiirinaysaa meel aynaan anagu waxba ka fahmi karin waa midda loo leeyahay marka meesha ka carara oo bulsho aan kula fikradana ku dhex noolaan oo reerkaaga ku dhex noolaynin wax kale laguma leh waxaa lagu leeyahay marka ugu dambaysa iyadan baa ka adkaan doonta marka wax lala lex jeclaabo wax lala lex jeclaabo oo ruuxu uu macnaha waxa weeye uu yani u naxo diinta ugu qali haddii maanta lagu yidhaahdo intaas shilima haysatoo dhanna waa lagaa qaadan carruurtaadoo dhanna waa lagaa qaadan xaaskana waa lagaala wareegi soomaydan qaxdeen ya wadaad intuu idinka yimaado africa iyo carab warqaxa oo hijrooda in yidhahda miyaad u baahanta ya haddii xoolahana laydinka qaadanay carruurtana laydinka qaadanay si halhaleel oon xataa isweydiin lahayn baad u fixi lahayd sooma xataa laysma weydiiyaan war xaggeen u qaxna xataa maydaan isweydiisan wax ka qaalisan baa laakiin laydinka qaadanayaayo maalinba qayb la goosanayo wax ka qaalisan carruur ka qaalisan xaasad ka qaalisan dhaqaale ka qaalisan muxuu yahay waa diin waa aakhiradaadii waa akhlaaqdaadii maalinba qayb baa la goosanayaa laakiin waxa weye iyada u qixi mayne xoolo laakiin waa u qixi lahay saas xoolo dartood waa u qaxayna laakiin diin la carara maya saas waan ugu adag sababtu maxay tahay leanna waxa weeye shaygu kolba qiimaha agtaada uu ku leeyahay ayuu ama dhib kugu qasbaa ama kaa joojiya waxaa aad qiimo inala weyn waxyaabahan kale laakiin diintu wax weyn bay nala bahay hadday doonto ha tagto hadday doontana ha joogto saas maana hadday doonto ha tagto hadday doontana waa joogto hadday doonto ha dhaawacanto hadday doonto ha qasanto yani waxa weeyaan almuhim waxa weeyaan muslim baan ahay ummaddii nebi maxamed baan ahay ummaddii nebi maxamed haddaan ahayna ummaddii maxamed jannaday wadageli waxaasa inaga dhadhac janno waa garanti meel bay iska taalla iyadu warkaasi war jira ma meesha laynaga soo galay halkaa rasuulkeenu muxuu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh man khaafa adlaja waman adlaja balaga almanzil alaa ina silcat allahi haaliya alaa ina silcat allahi aljanna buu nabi yuhi salawatu rabbi wasalamu calayh war ninkii cabsanaya oo jidka ka baqayaay habeenkiibuu socotayayoo guuraa maaqaano waxaad ka timaadeen waddankii waad lugayn jirteen ruuxu markuu ka cabsanayo maalintii qorax iyo gaajo iyo oon iyo habeenkii baa la lugeeyayoo jidka la maraa ninkii cabsanaya habeen buu lugeeyaa habeenkii ninkuu lugeeyana meeshuu rabay buu gaadhaa war ilaahay badeecadiisu waa qaali badeecada ilaahayna waa jannada buu nabi yuhi salawatu rabbi wasalaamu calayh wax rakiisa ood bilaash ku helaysaan ma aha
wax raqiis oo bilaash lagu helayo jannada ilaahay waa ka weyntaa subxaanahu wa tacaala. walaalayaal, marka bulshada aan ku dhex nool lahay mashaakisha inaga haysata waxa ugu weyn milankaas aynaan is-ogeyn een bulshada ku dhex milmayno. rasuulkeennaana sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh sida dadku ay bulshada iyo dadku isu saamaynayaan oo afkaarta isu weydaarsanayaan. wuxuu nabigu yuri sal lla alay wasalam, ruuxa xun ka la fadhiya ee la degan wuxuu la mid yahay sidii ruux la fadhiistay midka biraha garaaco oo kaleeto. baasha buufimada haysta, baasha buufimadee dabka lagu shido ee markuu dabka ka damaba ay ku huriyaan, buufimadaasoo kale u haystaa, birna wuu garaacayaa. kaasoo kalead la soo fadhiisatay. kaa markaad la soo fadhiisato laba mid wey, ama dambaaburada iyo dhuxusha, ilaan dabkii buu hurinayaa, dhuxusha dulduulaysa iyo dambaaburada dulduulaysa inay kugu dhacdo maryaha kaa gubto waa mid, ama waxaan dabka ku jira iyo waxaan uu shishidahayo urkiisa iyo qarmuunkiisa inaad ku rafaado. labadaa mid ka mida weeye haddaad la soo fadhiisato ruuxaas dabka shiday. ruuxa xun iyo bulshada xun la deganaanshaheedu taasoo kale ka dhigaya. haddii midkaasi uu maryaha iyo calalada iyo jidhka iyo dhimbilkaaga soo dushay ay ku gubayso, bulshooyinkan aan dhex degannahay ayagu maryo kaa gubi maayaan, laakiin diin bay gubayaan. dhimbisha bulshada ka soo duulaysa markaba waxay ku dhacaysaa qalbigaagay gubaysaa, iimaankii bay gubaysaa, akhlaaqdii bay gubaysaa, yacni waxa weeye wanaaggii bay gubaysaa, qiyamkii iyo wixii sharaf lahaa ee xishmad lahaay oo dhan bay gubaysaa. marada hadday kaa idinka gubaan, maro meel kaloo maad ka heli lahaydeen, maro la-aan maydaan noqoteene. laakiin wax qaaliya nebigu siduu ka wada salawatu rabbi wasalam aley xadiiska waxa weeye shayga qaaligeed haysato ayuu gubaya. ruuxa wanaagsan iyo bulshada wanaagsan la noolaanshaheedu wuxuu la mid yahay oo kaleeto nin cadar haysta, ninka barfuunka ama cadarka iibiyo adoo u yimid oo kale la soo fadhiista, ama waxa weeyaan fadhiisigaad timid, imaanshaha aad timid ee la soo fadhiisatayba baad udayga helaysaa udgoonka. ama meehe wuuba kaa iibinoo waad intifaacsan, ama meehe wuu iska kaasiin oo bilaash buuba kugu siin. ruuxa cadarka iibinaya faa'iida la-aan ka tegi maysa, dhibna kaa soo gaari maayo. bulshada wanaagsan ku dhex noolaanshaheeda iyo dadka wan wanaagsan la saaxiibidooda waa nooca. dadka xunxun iyo bulshada xun ku dhex noolaanshaheeduna waa taa hore oo nebigu ku tusaaleeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh, ninkaa dabka shiday. annaga marka isma ogin, iskamana war hayno, laakiin waxaa gubanaya qoysaskii baa gubanaya. sistamka iyo nidaamka qoysaska ilaahay ugu talagalay inay u noolaadaan waxaa bedelaya sistamka iyo nidaamka bulshadan aad dhex timaadeen qoysaskooda u nool yihiin. mana kari kartaan, mana caabin kartaan, mana isjeclin kartaan. nabigeenu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, alrajulu calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil, buu nabi sal alay wasalam. war ninku ruuxa uu saaxiibka la yahay buu ku diin yahay oo la diin noqonayahay, ciddaad la saaxiibaysaan ka fiirsada buu nabi yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh. adoo quman oo diin leh oo khayr badan haddaad ciyaal suuq saaxiib la noqoto maalinta dambe ciyaal suuq baad noqoni. adoo akhyaar ah haddaad kuwo ashraara la saaxiibto maalinta dambe ashraar unbaad noqoni. adoo qiimo leh haddaad kuwo aan qiimo lahayn la saaxiibto maalinta dambe qiimo darro baad kusoo dhici. limaada? inaynan waxba kuu sheegin baa laga yaabaa, laakiin dhaqankoodaa ku saamaynaya. marka saamaynta bulshooyinku ay isku samaynayaan ama adiga kugu yeelanayaan waa maskale iska cad. nabigeenu wuxu uhi sal lla alay waslam, laa tusaaxib ilaa mu'minan, ruuxaan mu'minayn ha la saaxiibin, hana la degin. dariskaaga, shaaricaaga, dawladdaad ku hoos nooshahay, bulshada aad yani kugu wareegsan, kulligood waa waxa saamaynaya noloshaada saamaynaya. mushkilada horta ina haysatahay kow oo qoysaskana haysatahay waa mawjadaas iyo dabaylaha xooga badan ee haya weerarkana ku ah wixii dhaqan iyo diin u ahaa. kow mushkilada koobaad taas. mushkilada labaadi waxa weeyaan izdiwaajiyatu talaqi waatarbiya almutacaadida. haddii bini aadamka ilaahay subxaana wa tacala siduu qur-aanku ku sheegay, ma jacala allahu lirajulin min qalbayni fii jawfihi, alla subxaana wa tacaala ruuxa bini aadamkaa laba qalbi uma samaynin, waa hal qalbi buu leeyahy.
xubinka qalbiga la yiraahdo ee bini aadamka wax qaadaay waa hal mid ruux laba qalbi leh ama laba wadna leh ilaahay ma abuurin subhanahu wa ta'ala maadaama ay saas tahay wadnaha iyo qalbigu mid haduu yahay hal mabda buu aqbali karaa laba mabda wadnaha isuguma tagi karaan Allah subhanahu wa ta'ala